dowladda Mareykanka ayaa dhawaan magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furanaysa safaaradeeda taasoo hadda si ku meel gaar ah ugu shaqeynaysa wadanka Kenya. qaar ka mid ah ciidanka qalabka sida iyo maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ayaa loo furay tababar ku saabsan ku shaqeynta qalabka musiga. wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ku sugan dalka Masar ayaa kulan la qaatay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta iyo wasiiro ka tirsan dowladda Masar. wararka dibaddana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Nigeria amartay in la soo xiro mid ka mid ah wasiirada madaxweynihii hore la shaqeynayay oo lagu eedeeyay musuqmaasuqa. وهاجاك داود يا لنتاسي waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed haatan oo diyaar garooba warkii oo dhameystiran waa 4 bisha 12 December 2018 dowladda Mareykanka ayaa dhawaan magaalada Muqdisho ka furanaysa safaaradeeda taas oo hadda si ku meel gaar ah ugu shaqeynaysa wadanka Kenya. warqoraal oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Washington ay safaaradeedii si rasmi ah dib uga furanayso caasimadda Muqdisho taasoo safiirka iyo diblomaasiyiinta kale ee Mareykanku ay ku howlgalayaan. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in talaabada Mareykanka uu dib ugu soo celinayo xiriirkii rasmiga ahaa ee uu la lahaa Soomaaliya ay qayb ka tahay xaaladda amniga dalka oo soo hagaagtay. waxaa kaloo Mareykanku sheegaya in Soomaaliya uu ka caawin doono arrimaha dhaqaalaha, dimuqraadiyadda iyo horumarinta bulshada. qaar ka mid ah ciidanka qalabka sida iyo maxaabiista ku jira xabsiga dhexe ee Xamar ayaa waxaa loo furay tababar ku saabsan ku shaqeynta qalabka musiga. wariyahayaga Axmed Cumar ayaa ka waramaya. munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed isla markaana ay ka soo qayb galeen taliyaasha ciidamada qalabka iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa ahaa mid tababar loogu furiyay qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo maxaabiista xabsiga dhexe ku jira kuwaas oo la barayo xirfadda garaacista muusikada noocyadiisa kala duwan si loo soo saaro dhalinyaro ka qayb qaata wacyigelinta bulshada. xirfaddan garaacista muusikada noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la barayaa 150 ku jirta maxaabiista xabsiga dhexe Xamar iyo 150 ciidamada qalabka sida oo isugu jira military, police iyo asluub, iyadoo tababarkan ay bixin doonaan macallimiin ajaanib ah. ugu horreyn daafurka tababarka munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Abwaan Cabduqaadir Shube. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada in ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada. waxaan leeyahay dadow dabkii gubashada lahaa, kulkii danqashada badnaa, kuwii nolosha u daraa midkay nagu soo duween adoo weli diifti qaba dushaadana boogihii ku yaalin daqaradii adoo dambaskii yaqaan dambaaburadii ogsoon u jeedana dogobyadii inay duuduulayaan. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa ku booriyay dhalinyarada tababarka qaadanaysa in ay ka faa'iideystaan duruusta la bixinayo. runtii wax aad iyo aad muhiim u ah way inaan ka faa'iideysano qalabka halkaas yaala tirada badan oo Bashiir ii sheegay in laga faa'iideysto oo berito loogu heeso oo isla fanka hal kaman maaha waxa weeye fan casri ah suu shub uga sheekeynayo way. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhalinyarada maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ay helaan waxbarasho iyo weliba xanaano iyo xirfado si ay aqoonta ay barteen ay uga faa'iideeyaan dadka kale. xafladda maanta aan u nimid oo isugu nimid waxa weeye furitaanka tababarka muusikada fudud ama orchestra waxa la yiraahdo oo ay baranayaan 150 dhalinyarada xabsiyada ku jirta ah iyo 150 dhalinyarada ciidamada qalabka sida laga soo aruuriyay. macallimiintoodu waxay noqon doontaa macallimiin ku takhasusay qalabkaas oo dalka dibadiisa nooga yimid oo aanu noqon doona macallimiinta dhalinyaradan wiilal iyo gabdho iskugu jira. mashruucan asaga ah waxaan halkan ka cadeynayaa idin sheegayaa inuu ku deeqay oo ay tahay deeq ka timid madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay tababarkan isagoo daafuray tababarka. waxaan leeyahay ka faa'iideysta fursaddan waa fursad
runtii dawladda Soomaaliyeed oo dhan ha ka faa'iideysato cimrigiisa iyo madaxiisana Allah noo raajiyaan leenahay taliyaha waxaan mar labaad leeyahay barnaamijkii tababarkii waa noo furan yahay. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku sugan dalka Masar ayaa waxa uu kulan la qaatay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta iyo wasiiro ka tirsan dawladda Masar. Wariyahayaga Mawlid Xasan Cabdi ayaa warkan naga soo diray magaalada Qaahira. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo 3 cisho howlo shaqo u joogay magaalada Qaahira caasimada dalkani Masar ayaa kulamo kala duwan la qaatay wasiirka waxbarashada, wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta. wasiir Cabdullaahi Goodax Barre oo uu weheliyo Safiir Cabdiqani Maxamed Waceys iyo diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda ayaa la kulmay wasiirka waxbarashada Masar iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista dalka Masar, iyagoo ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga waxbarasho ee ka dhaxeeya labada dal. waxa uuna wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Masar uu ballan qaaday in ardayda Soomaaliyeed ee deeqda waxbarasho ka hela dalka Masar ay u fududeyn doonaan dalku galka, sida uu sheegay wasiir Cabdullaahi Goodax Barre. waxaan la kulannay wasiirka waxbarashada oo runta waxbarashada soo qaadnay mid tahay sidii labada wasaarood isku kaashanaayeen sidii uu ahaa tacliinta Soomaaliyeed loo xoojin lahaa hadday tahay tayada waxbarashada sida macallimiinta oo kale kormeerka uu ahaa inay naga kaalmeeyaan horumarinta manaahijta iskoolaadka farsamo ee aan dhamacsannahay siyaasadda dowladda maanta ah howlahaas oo dhan aan isla soo qaadnay sidii muxuu ahaa manhajkeena ay u kaalmeyn lahaayeen hadday tahay tageyntiisa iyo hadday tahay daabacaadkiisa wax badan ayaan isla soo qaadnay waana isla maalgelinay runtii aragti wanaagsan ayay ka qabaan horumarinta tacliinta Soomaaliya. waxaan uga mahad celinay macallimiinta masaarida ee hadda shaqeeya Soomaaliya waxaan ka codsanay inay macallimiinta soo kordhiyaan. intaa kadib waxaan la kulannay sida waqti wasiirka tacliinta sare ee waddanka Masar. runtii waddanka Masar wuxuu ka mid yahay wadamada muslimiinta ama carabta ee wax badan la taro dhinaca waxbarashada. dowladda Masar sanadka waxay siiyaan 200 oo scholarships. waxaan kala hadalnay sidii taa loo kordhin lahaa, waxaan kala hadalnay sida loo fududeyn lahaa labada boqol oo hadda la siiyo. waxaan ka hadalnay arrin uu ahaa dhalinyaro oo 70 oo gaaraya Mawlid Xasan Cabdi, Mawlid Muha, warbaahinta qaranka, Qaahira. shir looga hadlayay amniga deegaanada Jubbaland isla markaana ay ka qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka AMISOM iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland, sida uu ku soo waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaada. shirkan maanta ay isugu yimaadeen golaha amniga ee dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka kala socotay ciidamada AMISOM ee ku sugan deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa diiradda lagu saarayay waxyaabihii ka qabsoomay sanadkan dhamaadka ah ee 2018 howlgalladii u dambeeyay ee ay wadeen ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo markaa kaalmo ka helaya ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. waxaana shirkaasi lagu jeexjeexay qodobadii ugu muhiimsanaa iyo deegaanadii ugu badnaa ee la xoreeyay ee ay kooxaha nabadiidka laga saaray ee ku yaala deegaanada dhulka waqooyiga ah ee magaalada Kismaayo. shirka ayaa waxaa shir gudoominayay oo shalay daafuray madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, balse maanta waxaa shirka uu ka duwanaa kii shalay iyadoona la iskula soo qaaday qodobo dhowr oo muhiima oo quseeya xaaladda amni ee gobolka. markii shirka uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Generaal Cabdi Mahdi Cabdisalaan oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kala duwanaa ee shirka amniga ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo. waxaa lagu qorsheynayay ugu horeyntii maadaama sanadkii uu dhammaado bishii u dambeysay aan ku jirno, waxaa qiimeyn lagu sameynayay isbeddelka ama xaaladii sanadkan dhammaatay, wixii guulo la gaadhay iyo waxyaabaha laga dib dhacay.
waxaana xaqiiqdii runtii la tilmaamay in dhinaca amniga horumar weyn laga gaadhay sanadkan oo goobo badan oo markii hore aan gacanta lagu hayn oo ay kooxaha argagixisadu ay joogeen laga farbaroojiyo gacantooda laga saaray sanadkan cusub sanadkii dhammaaday sida buulguduud oo kale wiirkooy baarsanguuni araare muuse xaaji baarsanguuni iyo isguuni labadaba intaba iyo koban oo hadda ah meel hore iyo maxaan ku idhaahdaa kalsuuma oo ah soona hadda lagu ciyaaro lagu dul ciyaaro ama maxay ahayd manoobar lagu sameeyo waxaa kaloo intaa iyadana raacsanaa oo jirtay maalmihii ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab iyadoona ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland oo isgarabsanaya ay ka wadaan howlgallo xoogan deegaano dhowr oo gobol ka tirsan ka oo la doonayo in haraadiga kooxaha nabadiidka looga dulqaado dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool waxaana sidoo kale saraakiishan ay faahfaahin ka bixiyeen isku dhacyadii markaa ka dhaxeeyay kooxaha nabadiidka ee al-shabaab iyo daacish ay ku dagaalamayeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo waxa ay kala socdaan saraakiisha ciidanka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa kaloo intaa iyadana raacsanaa oo jirtay sanadkan in xaggooda maartay khilaafyo badan uu ka jiray iyo hoos u dhac badan oo xagga iyaga dhexdooda ah dagaalka hadda Jilib ay ku sameeyeen oo kale oo maxay ahayd shabaab iyo al-qaacidi iyo ay ku dagaalamayeen yana Soomaaliya dil aqaan yana gowrac aqaana loogu tartamayay waxa kaloo jiray sanadkan runtii Malaysia badan baa ka soo xarootay oo u soo gashay oo hadda dhaqan celin lagu wadaa aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo tababar ku saabsanaa xalinta khilaafaadka ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada loogu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle faafinta warkaasina waxa inoo soo diray wariyaheena Abuukar Maxamed Bacadle kulankani waa tashiga xalinta khilaafaadka ee maanta lagu soo gabagabeeyay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa muddo 6 ah ka soconayay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana soo qabanqaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Hirshabelle waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle kulanka ayaa horeyntii waxa gabay ka soo jeediyay agwaanin ka soo qayb gashay oo dardaaran u jeediyay bulshada كلمينا هلاك باخد عنه هدلانتي هوتكنا بنان باب بدلوا هالكامر هركب جيبه الله تجيه هرع قبوه هاسنتو كصاب هرنو كلها ويسان هيان إياه وحال بجرا جدها بغلا هم أملأ يعف مشار قرعة أو وحدهم بينين قال لي يرى هركب اللي قال له شو اللي جحا بوسيه أو غير لو ولا هيجان وهو يدو دليا وقال يدقال يدقوا هنا قاضي أو هيل بدينه غرابتون كهكذا كيرك ganacsadan ciidan lagu hayo naga hamuun goyni oo carabka hoosta ka taga had iyo leelkiiba heesdana leh hooyaala gabay siibka la hanaashay nimcadaana kuma nimcada inaad halabsataan kuma heshid ma indisootaan war burhusada halkeen taaganaha galiba waa heer وعين halkaas ka hadla gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Ismaan Baari iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Culuw oo soo dhaweeyay kulankani waa tashiga iyo khilaaf ay shaqeynaysi inta hadda aan gudoomiyaha degmada ahayna waxaan umaleynaa markii ugu horeysay waaye waxay qabateen wax noo muuqdo waaye waxaan leeyahay kuwii waxbarashadooda wax u tarto ilaahay ka dhigo Jowhar lagu yaqaan ilbaxnimadaas ma aha too hadda lagu bilaawanaysa aan ku faaneyno oo waa mid aan u dhalanay reer Jowhar haddaan nahay adeeji ha kula shaqeeyaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan u sheegay iyo degmada adeegsada ummadda geed gaaban iyo geed dheer oo u qofka ummadda qoonto kibishan waa ka shaqeey karnaa waana isku dhex jirnaa bulshada kala meel saxteenta culimo u diinki adayta dhalinyaradii adayta aqoonyahanki waxaan leeyahay wasalaam calaykum ugu dambeyntii waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyra Makaraan wuxuuna kula dardaarmay bulshadii ka soo qayb gashay kulanka waa tashiga xalinta khilaafaadka in deegaanadii ay ka yimaadeen waxyaabay faa'iideysteen ay kula noqdaan marka waxaan rabnaa inaad qof waliba waxa ay inta ka qaaday 6 maalmood ee meeshan joogtay muhiimadii iyo waqtiga ay gelisay inay ummadda ugu faa'iideystaan maadaama Ilaahay adinka oo ka dhigay kuwa nasiibka u yeeshay
inay 6 maalmood seminaar meesha ku qaataan kana faa'iideystaan wixii aad taqiineen iyo wax kaloo lagu sii daray waa inta leeyahay bar waa intaas abubakar maxamed bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar qurba joogta Soomaaliyeed ayaa wada dadaalay uga qayb qaadanayaan taakuleynta ciidanka xoogga dalka si ay uga guuleystaan dagaalka ay kula jiraan kooxda argagixisada al-shabaab warbixin arrintaasi ku saabsan waxa inoo hayso wariyahayaga Maida Muxiyadiin qalabkan ayaa maanta waxa isbitaalka xoogga soo gaarsiiyay qoys Soomaaliyeed oo ku nool dalka Canada waxaana qalabkan gudoomay maamulka isbitaalka madaxa saadka caafimaadka iyo abaanduulaha arrimaha taakuleynta ciidanka xoogga dalka agabkan oo ka kooban joodariyaal sariiro iyo agab kale oo caafimaad ay qoyskan ugu talagaleen inay uga qayb qaataan taageerada ciidamada sida ay sheegtay Faadumo Muuse Cali oo kamid ah qurba joogta markasta waxaan jeclaan jiray inaan wax weyn oo ilaahay waxay aan geeyo wadankayga oo qof iyo laba maaha dad badan ay ku tiirsadaan oo maxaan ku yiraahdaa dhaxalgal u noqda alaabtaan maanta keenina waa alaab dhaxalgal ah kamaanta jooga ma ka bari jooga ma intaas oo dhan waa haysan kartaa alaabtu waxay ka kooban tahay 105 xabadood oo firaashya ah 30 sariira wixii ka sii badan galofis wax la yiraahdo ama midris ayaa ku jira waxaa ku jira maqasyadii waxaa ku jira weelkii lagu qaadayay saxarada ama kaadida canuufada alaabadaas oo dhan ku jirta macal waxaa ku jira alaabta dadka saxaradu markii dhigto kelida bacda looga gelinayo magac kala qaran lagu yiraahdaa waxyaabahaas ka buuxo ku jira agaasimaha isbitaalka xoogga dalka Khadiija Iimaan Caynto iyo madaxa saadka caafimaadka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay Faadumo iyo saygeeda agabkan ay soo gaarsiiyeen isbitaalka xoogga dalka waxaan ku soo biirtay hadda gabadh iyo odaygeeda oo ka imaadeen Canada ka imaaday oo tawa waxay siiyeen 40 feet container ah qalab ku jiro oo sariirada oo wax walba oo isbitaalka u baahan yahay ayay noogu keenay donation marka ayagana aadan u mahad celinaynaa dadka kalena waxaan ka codsanaynaa inay sidaas oo kaleeto ku daydaan ummadda waxay u baahan tahay wadankeeda ayadaa anta waxaa sharaf noo ah in muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Canada inuu maanta la soo gaarsiiyo qalab caafimaad oo runtii aan baahi weyn u qabnay kaasoo ahaa ummadda Soomaaliyeed runtii wax weyn u taray ugu dambeyn waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyay qoyskan Soomaaliyeed taasi oo hoggaanka caafimaadka ciidanku ugu talagaleen inay ku muujiyaan ka qayb qaadashadooda taageerada ciidamada Maida Muxiyadiin Dhiblaawe warbaahinta qaranka Muqdisho daawadayaal markana haddii aanu eegno warka dibadda maxkamadda sare ee waddanka Nigeria ayaa amartay in la soo xiro wasiirkii hore batroolka dalkaasi oo lagu eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne iyo musuqmaasuq Diazani Alizon oo ahayd wasiirkii batroolka Nigeria sanadkii 2010 ilaa 2015 ayay maxkamaddu ku heshay inay sameysay ku takrifal hanti dawladeed iyadoo ka hoos shaqeynaysa madaxweynihii hore ee dalkaasi Nigeria Goodluck Jonathan haweeneydan ayaa ku nooleed waddanka Britain tan iyo 2015 balse maxkamadda ayaa amartay hadda in la sameeyo tallaabo walba oo cadaaladda lagu horkeeni karo Nigeria oo qani ku ah shidaalka ayaa weli shacabkeedu la dhibaatoonayaan faqri iyo gaajo waxaana loo sababeynayaa inaan si hufan loo maamulin kheyraadka dabiiciga ee dalku leeyahay maamulka madaxweyne Muhammadu Buhari ayaa dhowrkii sano ugu dambeeyay qaada tallaabooyin lagula dagaalamayo musuqmaasuqa taasoo ay ka mid ahayd liiska in laga tiro kumanaan macallimiin oo u diiwaan gashnaa inay iskuulada dawladda wax ka dhigaan balse aan shaqo u qaban dawladda وهاجاك داود يلا وحين تاسين نقول لما هذا يوركي عالم كات كلا سعودنا تلفزيون كقرن كصومالي حرمتي سدح مقالة مقدشان يقع عمر حسن عليه وركي يدين سوجيدني إذا ما صاحب بدي وركي قال قيب قلب داود يلا نقول اسكت دوما ثاني كلانتين دنبوحان دلنا هاي سيداسيو لما تقليه